Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saaxiibada baadigoobka guusha, sida aad wada ogtihiinba waxaa xilli roobaadkan dayrta ku soo batay dhulka ay Soomaalidu degto xasharaadkan loo yaqaano ayaxa, isagoo fara ba'an ku haya deegaanka, gaar ahaan beeraha. Haddaba maanta waxaan idinla wadaagi doonaa macluumaad cajiib ah oo ku saabsan ayaxa, haddii ay ahaan lahayd faa'iidooyinkiisa iyo cudurrada uu daawada u yahay. Ku soo dhowaada mawduuceena maanta. Ayuxu waa mid ka mid ah cayayaanka ubaxleyda ah ee aadka u cunta dhirta. Cilmiyeedka loo yaqaano xasharaadkan ayaa ah locust ama grasshopper. Waxaa caalamkan ku nool in ka badan 20,000 oo nooc oo ayax ah, kuwaasoo midba midka kale ka duwan yahay, iyadoo kala duwanaanshahan ay sabab u tahay deegaamada ay ku kala nool yihiin. Cayayaankan loo yaqaano ayaxa ayaa u socdaala masaafo aad u dheer, isagoo waxyeello weyn u geysta dalagga. Ayaxa ayaa leh faa'iidooyin aad u fara badan. Waxaa laga helaa borotiinno, dufan, kalsiyum iyo nafaqooyin kale oo aad u badan. Borotiinada laga helo ayaxa waxaa lagu qiyaasaa 62%, iyadoo la ogaaday inuu ka borotiin badan yahay lo'da, halka dufanka laga helo uu gaarayo 17%. Faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay ayaxu ma aha kuwo la soo koobi karo. Wuxuu daawo u yahay rheumatismada, dhabar xanuunka, bawaasiirta iyo infekshinka ku dhaca dumarka, isagoo sidoo kale ka qayb qaata korriimada carruurta. Si guud, ayaxa waxaa aad looga cunaa qaaradda Aasiya, gaar ahaan waddamada Carabta oo ay ka mid yihiin Yemen iyo Sacuudiga. Diinteenna suuban ayaa bannaystay cunista ayaxa. Waxaa daliil u ah xadiiskii nabigeenna, nabadgelyo naxariis korkiisa Allaha yeelee, uu lahaa: uxilla lakum maytataani wa dammaani. Waxaa laydiin xalaaleeyey 2 meyto iyo 2 dhiig. Haddaba 2da meyto waa malaayga iyo ayaxa. waxaa kaloo laga wariyey saxaabiga jaliilka ah ee lagu magacaabo Cabdullaahi ibn Abi Awfa, Allaha ka raali noqdee, inuu yidhi: ghazawnaa maca rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam 7 ghazawaatin fakunnaa na'kulu ljaraad. Rasuulka micigiisa ayaan duulnay 7 duulaan, waxaan ahayn kuwa cuna ayaxa. Haddaba inkastoo ayaxu uu waxyeello u geysto dalagga, haddana waxaad ogaatay inuu bannaan yahay, caafimaad leeyahay, oo uu daawo u yahay cudurro fara badan. Haddaba ha ku ceebin dadka cunaya ee dhinacaaga ka cun. Mahadsanidin. Fadlan sheer gareeya muuqaalka oo ku soo biira channelka Baadigoobka Guusha.